waxaa ismaamulka Dirdhabe saaka subaxii ka qabsoomay kulan la iskugu yeedhay culamaa diinka ismaamulka Dirdhabe iyo waaxiga ku dhaqan oo lagaga hadlayay midnimada iyo waliba sidii loo xoojin lahaa midnimada loogana hortagi lahaa kooxaha wada inay kala geeyaan dadka islaamka munaasabadani waxa goobjoog ka ahaa Sheekh Cabdulaahi Maxamed oo ah madaxa masjid calaha ismaamulka Dirdhabe isla markaana wuxuu halkaas ku sheegay in labadii sano ay hayeen masjid calaha ay ka shaqeeyeen sidii loo adkeyn lahaa midnimada culimada iyo waliba midnimada bulshada isla markaana looga hortagi lahaa qaybaha kala duwan ee raba inay kala geeyaan dadka islaamka mudane Cabdulaahi oo munaasabadaasi hadal ku furay ayaa wuxuu sheegay in ay qayb weyn ka qaadanayso midnimadu sidii islaamku uu noqon lahaa mid adag waxana daladiisii kamid ahaa sheekha sida darteed walaalayaal ka majlis ahaan waxaan ku dadaalay baladkan aan joognay Diridhabe baadiyihiisa iyo magaaladiisaba inay dadka muslimiintii noqdaan kuwa midaysan waxaan aad ugu dadaalay liwaxdati almuslimiina fi hada albalad lijamci kalimatihim baan ku dadaalay waxaan intii yaraydan joognay labadii saneen meesha joognay waxaan aad ugu dadaalay in aan la dagaalano waxa weyn ururada wax dumiya ama fikradaha dadka muslimka ah duminaya ee iska horgeynaya sida takfiirka oo kale axbaashta oo kale qolaymka soo baxday oo super salafi la yiraahdo kuwaas afkaarta hadaamada ah ee qaarkood ay shiicanimo xambaarsan yihiin la dagaalankoodu majliska u taagay muslimiinta kale dhamaantood inaan kulmino on kalmadooda midayno baan run ahaantii u taaganahay maanta taan idinku yeedhana waa taas waxaan idinku baraarujinaynaa muhiimadda aan ka leenahay dawladdan inay qabsoonto wax kala ma aha waa liwaxdati almuslimiin waxaan u malaynayaa 30 sano inaan ku jiray waa markii u horeeyay aan u qabanno culimada sawaynaa lahum dawra wa awwal marra u malaynayaa insha Allah ijtimaacyo kale oo fara badan way jireen insha Allah waxaan go'aansanay ka majlis ahaan inaan u sameeyno culimada dawlad laba maalmood insha Allah oo soconaysa يوم الأحد ويوم الاثنين إن شاء الله دورة داس وحن دين ديارني علماء أهل وأخ دروس تاس كلا دوان إنا إذن سيسو أنت بدنا دين الإسلام هو دين الاجتماع اجتماع المسلمين ورحمة runtii ijtimaaca almuslimiinna waa raxma culimada ismaamulka ku dhaqan qaybihiisa kala duwan ee mi iyo magaalaba ayaa tababarkani ka soo qayb galay tababarkani wuxuu socon doonaa muddo 2 cisho oo xidhiidha